أحمد قري وضد كجرب دجالمي شري أحمد قري وإلا دجاك السبب وضد متقنع أن لوسو دعي كريم عرب إيا الباب بدأ ذلك عرب ميشو كاحيقو وحكاحيق درب الحديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبض داود الملك استوديو دافيدا كتشوكتين ومركل يا مقال عصب يا مركل يا ولكني عندي سو مشهد نقد داون السنة وبرتا يوتيوب كل النهاية عول أوفيشيال لما أنت تسوي هذا الملك استوديوكتان مركل يا مقال عصب waxaan la wadaagi doonaa dagaalka ka soo cusboonaaday galbeedka magaalada Hargeysa waxa halkaasi dagaal waxa ka dhacay maanta aad iyo aad u ba'an taasoo mataqaanaa dhaawacyo badan iyo mataqaanaa dhimasho badan sababay hadaba kuwaas doonayeen la wadaag asxaabta qaaliga soo dhawaada bas inta muuqaalka la wadaag waxaan codsan sidii caadi dhaqanka noo had inaad channelka subscribe saartaan sidoo kale muuqaalka like tana saartaan wixii fikri waraad ka qabtay isla muuqaalka gudihiisa la wadaagi doonana barta comment hoos nagu reebta aad baad ugu mahadsan tahay soo dhawaada hadaba سيد داركسن أما تيبلون كاتكو سو أركتين وحنا كنا جونا حالة كسو مستي تجمد الدعوري هل كاسو يسكت تجالين بيش وجدين يبيش عرب جرن كرن منه رتي واحد دجال كاس سببي سببته كويد بس عندنا مقال كنا نسلا داورنا waxa la soo gaarsiiyay gudaha magaalada Baliguballe dhaawac tirahan ilaa 6 dhaawac hase yeeshee dhaawacu soo socda dhimashiyo dhaawac farbadana waa jira wad arkaysan dhakhtarka Baliguballe sida uu ciriyoonka uu maanta u yahay daawadayaal waxaan idin la socodsiinaynaa ummadaas magaalada Dacwaley waxa suuqay oo geysay sad mudaarkiisana ka muuqaalka ku arkaysan halkaasi waa isbitaalka guud ee magaalada Baliguballe ama gobolka Baliguballe saarkiisan waxa halkaasi la soo gaarsiiyay dhaawac aad u tiro badan iyo sidoo kale dhimashada la sheegayo سيد ذلكسان runtii aan horta waxaan oran lahaa dagaalkan waa in halkaasi lagu soo afsharo lagu soo qaboojiyaa runtii inagoo la ildaran dagaalkii ka socday barigan hadan in galbeedkii mataqaanaa dagaal culus inaga yimaado runtii waa wax aad iyo aad u foolxun hadaba adigu bal comment ku soo qor maxay tahay labadan beelood ee walaalaha ee mataqaanaa xididku ka dhaxeeyo maxaa sababay dagaalka intan leeg ilaa hadda lama xaqiijin labada dhinacba inta qof ee ka dhintay balse ilaahay waxa ka rajayna in dagaalkaasi halka ilaahay ku soo dabaalo halkaasi ku qaboojiyo ummadana burcadka isku mariyo sida dilkaasi si bareera dawladda si bareera oo madaxweynaha sad arkaysan dagaalkaasi waxa geystay dawlad deegaanka ciidanka new booliska uu madaxweynaha u yahay Mustafa Cabdi wasidoo kaga dhawaajiyay wiilkan hadaba maadaama ilaa iyo dawladii ilay sidii mataqaanay wixii ka dambeeyay Somaliland iyo dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa laba dal oo jaar oo nabad ka dhaxayso oo wax wada wadaaga oo wali aad ugu fududaatay magaalada Hargeysa iyo guuraha Somaliland isku socodka xagga wadooyinka walow dawladii ilay dadyoga lagu caqabadeyn jiray ama mataqaanay lagu dhibaateyn jiray jidadka ay labada dawladood wadaagaan hadaba waxa ugu maqaala ama warar hadana soo gaariyo sheegayaan wasiirka cusub ee amniga ee dawladda Somaliland oo mataqaanay wada hadleen madaxweynaha dawlad deegaanka Mustafa Maxamuud Umar Mustafa Cabdi ay wada hadleen kana wada hadleen dhibaatada labada beelood ee walaalaha Arab iyo ogaadeen dhaxtal ee u dhaxaysa Mustafa Cabdi waa madaxweynaha la oran kara aqooniyan dhisan waa madaxweyne mataqaanay aad u daneeya nabadda ka dhaxaysa Somaliland iyo dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo madaxweynaha ka yahay Mustafa Cabdi hadaba Mustafa Cabdi wafdi buu soo diray halkaasi arintan dhaxdhaxayo nabadaya ilaa hadana bal waftigaasi iyo mataqaanay dagaalku halkaasi ku saaf meerana waa mid aan sugan asxaabta qaaliga hadaba adigu fikirkaaga noogu reeb maxay kula tahay dagaalkan maxaad rajeynaysaa in ilaahay halkaasi ku soo gabagabeeyo ku soo dhabeeyo waxaad rajeynaysaa comment noo soo qor waxaana u ducaysaa intii halkaasi inaga dhimatay labada dhinacba inaad tiraadaan intii dhimatay Allah u naxariisto inta noolna ilaahay u dhaawacayo waaya waxaan doonayaa hadda inaan la wadaago dhalinyaro iyaguna mataqaanay ka tirsan beesha ballaaran ee Arab weyne oo iyaguna si qiiro leh ugu mataqaanay ula hadlaya beelweynta Arab oo leh beeshii qaybtii barigu mee iyaguna leh ayaan doonayaa in la wadaago asxaabta qaaliga bal waa kan muuqaalka isagana ee halkaad ka artay la daawo
bushaara reer sheekh saxaqow ninka kaliya ee cagdheer 10ka u dhigi kara waa aniga ninka waxaad arkaysaa waa saraakiishooda meedadkoodii ninka saanad ciidan iyo meedkoodii raseeyay baan ahay ee faani kara waxaan idin leeyahay reer sheekh saxaqow madaxiinu kor سادة المقاطعة كان ويل كان ويل عربة وحاول كلي بشارة بيروين تإسحاقه وعلى نيك كلية عقير 10 كوديجر سادة كسر هرتا لبضع بيرو وحن بيرو آديات متقناي وقد حيسنا بدي كذا حيسو إلهي نوح كبرينا إن بطاس إلهي متقنا وصوت بارو هرتا هذا بوح لوركرا بيش وقادين وبهل متقناي هذه ترى وحنتو إنهين ضد متقناي إسكام مانجام إسك جاهلين فنقول صعنا نقول كن فكرة السيدة. عن خضر سنة يا نو ما أنت أوجادين إقدر مش بدن تكنيكا صاوغ هيستا ما فهمتي ترى بعضن سوتش الدنيا وحوي عرب كي جيد توجب بري توجي لما حيو هل قلت لما حيو هل قف لما حيو وحال كايدين دقي كوريا دو توجتان أنا بديسان هذا كورينا وبالبلايو إذا كشيء ورنا وحن خضر سنة يا الله يا ربو معقول كسيدو كقدر واجيي بنوينتي عرب اللي يقان باشا شيخ إسحاق وعرب ودتك كلية ديجودو يهاي بقول كيف بقول باشا عرب ودتك متقنا وجوديرن حتى يدقال نقطه ودتك متقنا أن برتو ذا اللودين كريم ودتك باشا عرب دقال لم يشري إلا يو محيدي عرب ماها يقصوا دق معها ساكت كاركتان هذا بقى هرتا إلهي وحكرت شيء نام متقنا الدجال هالكاسي كسو أفشرو إلهي هالك كوكب وتشيو إن متقنا لبض الجمع إلهي وحيد مشى أنا متقنا ونحرسته وحيد داو عن إلهي أبو قدايو غير إلهي كرت شيء لنا سيدو كله وحنا رشينا سووا نخسيا بدن له لبض الدولة الصومالي لان الدولة دجان كصومالي ده إثيوبيا إن إلى مقطع هالكاسي أي وذا هذا وفد حقنا الصومالي لقدرو وفدنا حق إثيوبيا لقى صدره دبيتنا متقناي حد كلا بدأ الدولود وتشارة هالكاس كل مان دبيتنا نبض هالكاس إن شاء الله ولقى صدره وحن الله يهدى أن لدى على دعنا دجال كحاجة بريء نجاه يستي ما نربنا إن مدينو بو قح يدي باتو قح وهاي نوقفلن أنت ساي نوقفلن إلى أنت سنكرتشيننا صحاب تقاليقة يذكروا برتكم تيجوا عند وسوق قطان إلى هو دجال كلا قبوتشي بيل والبا باش عربي باش وقادينا ودد حدد يمتقناي دقش iyo matqana ay ka dhaxayso markaas dagaalku wuxuu faa'iido leeyahay ma jirto dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho intaas aan uga barinaa meel kasta joogto waxa leeyahay habeenku idin wacnaado aad iyo aad buu maasantiin intaanu muuqaalkan muuqaal lamid ku kulmi doono waxaan iga tagnaa sidaayo salaam alaykum